السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا ونكسن إذا هانتين بمل ولبا أو الدنيا كجوكتان كوزو دوادا قيبتي لبعض تحنيه كوساب سنة تاريخ دولك بركة سنة فلسطين قيبتي كواد وحن سي كوبان وهذا تاريخ ذا فوق فلسطين يودعدوينكي هو وينا duulaanadii cadowga iyo futuuxaadkii Islaamka ay ka dhacay dhulkaas Falasdiin wixii ka horreeyay dagaalkii koobaad ee dunida qaybtaas haddii aadan fiirsan waxaad ka heli kartaa qaybta hoose ee description-ka iyo commentiga koobaad ama linkiga kaaga soo muuqda shaashada dhamaadka muuqaalkan magacaygu waa Cabdirasaaq Muhaajin halkaad nagala socotaan waarsadka 252 asxaabtana cusub waxaan si ixtiraam leh idinkaga codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan fadlan hadda subscribe saar si aysan ku dhaafin muuqaalada soo socda Falasdiin ayaa ka mid ahayd deegaanadii looga arrimin jiray dowladdii Islaamka ee Cismaaniyiinta waxayna dowladdaasi gacanta ku haysay Falasdiin ku dhawaad 400 oo sano ilaa burburkii Cismaaniyiinta laga gaaray dagaalkii koobaad ee dunida halkaasna uu maamulkeeda kula wareegay gumeystii Ingiriiska 9 December 1917 haddaba si aan isugu xiranno burburkii khilaafada Islaamka ee Cismaaniyiinta iyo Falasdiin oo ka baxday gacan ku haynta Muslimiinta waa inaan fahanaa sababihii iyo canaasirtii qaybta libaaxa ku lahaa burburkii dowladda Islaamka sidoo kale waa inaan fikrad ka helno heshiisyadii taariikhda baalka madow ka galay ee dagaalkii koobaad dunida dhacay Ingiriisku uu la galay hogaanka Carabta Faransiiska Ruushka iyo Yahuudda ee lagu lafaguray masiirka bariga dhexe taa oo gabi ahaanba taariikhda juqraafiga siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida wax weyn ka bedeshay horseedayna colaad iyo dagaallo ilaa maantadan socda boqortooyadii Cismaaniyiinta oo arriminaysay ku dhawaad muddo 620 sanadood ah kana mid ahayd boqortooyooyinkii dunida soo maray kuwoodii ugu awoodda badnaa ayaa dhamaadkii qarnigii 19aad bilowday leeqleeqasho iyo dabac siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid militariba iyadoo isla markaasi la daaladhacaysay duruufo kala duwan sida dhaqaale yari faragelin shisheeye siyaasad dabacsanaan taas oo kaliftay in adeegyadeedu si hufan u kala gaari waayeen dhulkii aadka u ballaarnaa ee ay ka talinaysay iyo in cadawga kala duwani uu soo hawaysto dhulka ay boqortooyadii Cismaaniyiintu hogaanka u haysay ayaa ku fidsanaa waqooyiga qaaradda Afrika bariga dhexe bariga fog ee Aasiya koonfur bari Aasiya iyo waliba koonfurta iyo bariga bartamaha Yurub dagaalkii koobaad ee dunida oo ka hor dagaalkii labaad ee dunida loo aqoon jiray dagaalkii weynaa The Great War ayaa bilowday markii ay taariikhdu ahayd 1914 kadib shirqoolkii lagu khaarijiyay dhaxal suge Archduke Franz Ferdinand ee dhaxal sugaha ka ahaa boqortooyadii Austria oo markaa ka tirsaneyd boqortooyadii weyneed oo ay ku mideysnaayeen dowladaha casriga aanu noolnahay loo kala yaqaan Hungary, Austria, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Bosnia, Croatia iyo qaybo ka mid ah Poland, Romania, Ukraine, Moldova iyo dowlado kale kuwaas oo dhammaantood ahaa hal boqortooyo loona aqoon jiray Austria-Hungary khaarijinta dhaxal suge Archduke Franz Ferdinand ayaa la sheegaa inuu sabab u noqday bilaabashada dagaalkii koobaad ee dunida dagaalkaas oo socday muddo 4 ilaa 5 sano ku dhawaada dhacdadan lama ilaawaanka ee sababtay dagaalkii koobaad ee dunida ayaa ka dhacday Sarajevo oo hadda magaalo madaxda dalkaasi Bosnia halkaas oo lagu khaarijiyay dhaxal sugaha iyo ooridiisa lagu magacaabi jiray Sofi falkaas dunida gilgilay ee uu ka dambeeyay Gavrilo Princip oo Serbian ahaa ayaa dhacay markay taariikhdu ku beegnayd 28 Juun sanadii 1914 Gavrilo iyo xisbiga uu xubinta ka ahaa ayaa in muddo ah waday kacdoono ka dhan ah boqortooyada Austria-Hungarianiska taa oo gumaysi ku haysatay qaybo ka mid ah Serbia iyo Bosnia shirqoolkii lagu khaarijiyay Ferdinand ayaa aad u saameeyay xasiloonida dunida oo idil gaar ahaan qaaradda Yurub taas oo ay boqortooyadii Austria-Hungarianiska ee Serbianka ku aadeeyeen inay ka dambeeyeen dilkii loo geystay wiilka dhaxal sugaha taa oo sabab ay uga dhigteen inay karkariyaan olole colaadeed maadaama boqortooyadii awoodda badneed ee Ruushku garab u ahaa Serbianka ayay Austria-Hungarianiskuna ay garab u doonteen kaysarkii labaad ee Jarmalka
kaas oo durbadiiba Jack Faaruq ah u soo saxiixay amaba ballanqaad aanan markaa dhabka ahayn u sameeyey ballanqaadkaas oo ku aadan inuu garab u noqon doono haddii foodo la isdaro. sidoo kale Austro-Hungarianisku waxay dareensanaayeen in Ruushku uu isbahaysi xooggan kula jiray Faransiiska iyo boqortooyada Ingiriiska. carab laalaadintii Jarmalka uu u sameeyey Austro-Hungaria kadib ayay digneen culus iyo shuruudo aanan maangal ahayn hordhigayn Serbiya, taas oo ay Serbiyaanku u fasirteen dagaal iyo xoog ku soo fool leh. mukhaabaraadkii Serbiyaanka oo helay xog ku saabsan in dhigoodu ay soo faysanayaan hubkooda culculus ayay iyaguna ku dhawaaqeen in ay galeen xaalad dagaal. xasiloonidii gobolkana ay sidaas ku dhamaatay, taas oo wax weyn ka bedeli doonto siyaasadda mustaqbalka juqraafiga dunida gebi ahaanba boqolka sano ee xigta. muddo toddobaad gudihiis ah ayaa dowladaha Yurub oo dhan waxay isu diyaariyeen dagaal, waxaana saasaanta dagaalka laga dareemay dhammaan dacallada qaaradda Yurub iyo dunida oo dhan. dagaalkii koowaad ee dunida waxaa isku fara saaray laba isbahaysi oo la kala saftay Serbiyaanka iyo dhigooda Austro-Hungarianiska. Serbiyaanka waxaa ku garab ahaa dowladaha Ingiriiska, Faransiiska, Ruushka, Talyaaniga, Romaaniyaanka, Jabaan, Giriiga, Bortuqaal iyo Mareykanka oo lagu magacaabi jiray quwadihii isbahaysiga. halka dhinaca kalena ay ka mid ahaayeen dowladaha iyo boqortooyinka ah Jarmalka, Bulgaariya, khilaafada Islaamka, Cismaaniyiinta oo ka garab safnaa boqortooyadii Austro-Hungary. isbahaysigaas oo la magac baxay quwadaha dhexe. dagaalkii koowaad wuxuu sababay dhimashada iyo waxyeelo in ka badan 40 milyan oo ruux marka la wada xisaabiyo tirada guud ee shacabka iyo ciidanka ay waxyeeladu gaartay dhammaan. taariikhyahanada dagaalka koowaad wax ka qoray ayaa ku tilmaamay dhimashada malaayiinta gaartay ay isu biirsadeen canaasirta kala ah adeegsiga hubka culculus iyo kiimikada noocyadeeda kala duwan. teknolojiyada dunida ay si dardar ah u soo ifbaxaysa xilligaas. cudurro ka dilaacay goobihii dagaaladu ka jireen sida hargabkii Isbaanishka, abaaro iyo macluul ku habsatay wadannada qaar. cidna kama faalo karto sooyaalka qadiyadii boqortooyadii Cismaaniyiinta bariga dhexe iyo Falasdiin haddii aanan la iskor taagin heshiiskii aadka u foosho xumaa ee magaciisu ahay Sykes-Picot ee dhex maray raggii kala ahay Mark Sykes iyo Francois George Picot oo ka kala socday Ingiriiska iyo Faransiiska. heshiiska oo dhacay May 1916 ayay si qarsoodi culus ah ay labadaasi dowladood iyo Ruushku ku heshiiyeen sidii ay u kala qaybsan lahaayeen dhulka ay ka taliso boqortooyada Cismaaniyiinta waa haddii dagaalka looga itaalroonaade. waxay ku heshiiyeen in Ingiriisku la wareego qaybo ka mid ah Ciraaq, Kuwait, Faransiiskuna Lubnaan iyo Syria iyo qaybo ka mid ah koonfurta Turkiga. halka Ruushkana loo ogolaaday dhulka bari gaar ahaan Armenia oo markaas ka tirsanayd boqortooyada Cismaaniyiinta. sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen in Falasdiin ay ahaato goob dhexdhexaad ah loona sameeyo maamul caalami ah ka oo loo wada dhan yahay, maadaama ay tahay dhul ay diimaha kala duwanay aad u qadariyaan una tahay goob barakaysan. walow Ruushku sanad kadib uu sirtaan si lama filaan ah u faafin doono, qorshahanna uu ka goosan doono maadaama uu ku jabay dagaalkii koowaad ee dunida. haddana dhinaca kale Ingiriisku wuxuu xiriir xooggan u la lahay hoggaankii carabta ka talinaysay Xijaaz ee Haashimiyiinta. dhulkaas oo maamul ahaan hoos imaanaya khilaafada Islaamka iyo Ingiriisku uu ka waday olole ka dhan ah Cismaaniyiinta, isagoo u ballan qaaday in uu ka caawin doono inay carabtu yeeshaan dowlad carabeed oo mid ah, taa oo ka madax bannaan Turkida oo ula jeeday khilaafada Islaamka. halkaasna ay ka dilaaceen kacdoonkii carbeed ee ka dhanka Cismaaniyiinta. Ingiriiska oo xilliga uu ololahan horinayo fadhigiisu ahay dalka Masar, taa oo uu ku qabsaday khilaafada Islaamka ayaa waxa shirqoolka iyo kala furfurka hogaamiyeyaashii carabta oo dhexaad uga ahaa ninkii la oran jiray Colonel Thomas Edward Lawrence oo loo aqoon og yahay Lawrencihii carabta. Lawrence oo ahay gaashaanle sare oo ka tirsan ciidanka Ingiriiska ayaa si diblomaasiyadaysan u dhexgalay carabta, aadna wax uga bartay dhaqankooda, siyaasadahooda, halkaasna uga faa'iidaystay inuu fuliyo howlaha jaajuusnimo, shirqool, ololo dagaaleed iyo kicinta carbeed ee dowladdiisu u soo igmatay. falalkaas oo dhammaantood lagu waxyeeleynayo dowladda Islaamka iyo shacabka
carbeed balse ay carabtu xilliga u arkayeen in ingiriisku ku garab yahay kana talinayo maslaxadooda. ballanqaadkii uu ingiriisku sameeyay madaxdii carabta iyo heshiiskii hoose ee Sykes-Picot ingiriisku iyo Faransiisku ku kala qaybsadaan dhulka carbeed ayaa waxay isku noqdeen wax liidi isku ah. hogaankii carabtana aad uga caraysiiyey halkaas oo ay ku dareemeen inay ka baxayaan dowladdii Cismaaniyiinta laakiin ay gacanta u galeen gumaysi reer Yurub oo horle balse farsamooyin iyo khiyaanooyin badan kadib waa uu ku guuleystay ingiriisku in carabtii uu ka indhatiray heshiiskii Sykes-Picot wuxuuna sii horiyey kacdoonkii carabta ee ka dhanka ahaa dowladdii Cismaaniyiinta. iska horimaadyo iyo dagaallo badan kadib waxaa ingiriiskii iyo carabtii oo isku dhinac ka dagaalamaysay ay faraha ku dhigeen Falasdiin waana ay ka itaal roonaadeen boqortooyadii Cismaaniyiinta. sanadii 1917 bishii 12aad ayuuna gumaystaha ingiriiska iyo carabtii ka garab safneed ay gacanta ku dhigeen Falasdiin. muuqaalka xiga ayaana uga hadli doonaa sidii ay ingiriisku ka yeeleen Falasdiin iyo xaaladda gumaysi ee Falasdiiniyiintu ku jireen 115 sano ee lasoo dhaafay. daawadayaal inta muuqaalka xiga kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo.